عيشوا ويبلابنت وحي اللي سوغاينا انتا سودن واتا ما تدعدي شلبي دعدي او ما تدعدي داون ماينو نين هدو نغا هري نين والله ما نتاورين وبالله ما نتاورين والله ما نتاورين هدو نغا هري عيشوا كاكا فدغ iminkay gun iyo caar la baxday beesha ciisana gabi ahaanba deegaanka Gaarisa oo shalay maatideedii lagu xasuuqay waxay dagaal qaraar oo maantay dhacay ay ugu awood sheegteen kana saareen maleeshiyaadkii jabhadda buurta gacan libaax waxaana muuqaalada la helayo ay muujinayaan maleeshiyaadkii jabhadda buurta gacan libaax oo laga sifeeyay magaalada xilli ay qoryaha iyo hubka darandooriga u dhacay iyo sidoo kale hubka teknikada ah ee saaran gaadiidka dagaalka ay ka ridayaan banaanka magaalada iyagoo markaasi si arxan darro ah madaafiic iyo sidoo kale qoryaha sikaawaha iyo dhishikaha ugu garaacayo deegaanka Gaarisa waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaaladii maantay dhacay qasaare askarta maamulka jabhadda buurta gacan libaax ku dhacay oo la soo warinayo saraakiil caan ah oo la sheegay inay dhaawacmeen iyo sidoo kale markaasi hub ay furteen beesha ciise kadib jawaabta gumaadkii shalay ka dhacay deegaankaasi oo ay maamulka jabhadda buurta gacan libaax dad rayid ah ay xasuuq ugu geysteen markii ugu horeysay waxa la duubay muuqaalada dadka rayidka ah ay xaqiijinayaan hubka sida arxan darrada ah ay jabhadda buurta gacan libaax ugu burburinayso guryaha deegaanka Gaarisa iyagoo muuqaaladu dadka shacabka ah ay duubeen guryihii la dhacay qoryaha gaadiidka saaran sida roobkiina loogu burburinayo guryahaasi halka koonaha waxa ku dhacay rasaas sikaawi halka rasaas sikaawi ku dhacday guriga burburo guri shacab waxaas waa rasaastii guriga ku dhacaysay ee soo dibso gudaha guriga waxa saasa rasaastu dhaxtaal waka arayga duldoolsi badartan shaandhay ka dhigay guriga xataa sariirtii wata ee burburtay dhammaan koreyaasha rasaasta ka dhacday waka sariirtii waxaas guriga meel la qaato mara dhanka kale gurmadkii ugu badnaa ee ciidanka jabhadda buurta gacan libaax oo ka soo baxay magaalada Boorama iyo sidoo kale xirada iyo Garoyo xool ayaa ku soo socda deegaanka Gaarisa sida ay tabinayaan muuqaalo looga duubay jidka iyagoo ujeedkoodu ugu weyn yahay in si xooggan loo maquuniyo beesha ciise ee maanta iyo shalayba iska difaacay hukuumadka bahanimada ee jabhadda buurta gacan libaax ay markaasi ku soo qaaday deegaanka Gaarisa ama ay ka geysatay waxaana saacadii ugu dambeeyay ee galabta iyo maqribnimadan markaasi 24 July 2026 arrimaha shacabka ciise iyo ciidamada dadka deegaanka loo diray ay in heegan culus ay galaan beesha ciisena meel kasta ay joogaan ay isaga yimaadaan si ay u difaacdaan maatadooda maadaama taliyaha guud ee ciidanka maamulka Hargeysa Nimcaan Gaaxnuug oo ka soo jeeda beesha Arab oo si cad u bixiyay amarka ah in la xasuuqo sidoo kale la laayo beesha ciise waxay tahay fariinta ay dirayaan odayaashii dhaqanka ee maanta hadlay iyadana barnaamijkan idin kula wadaagi doono odayaashii dhaqanka ee beelaha ciise oo maanta hadlay iyagana fariinta ayaan idin kula wadaagi doonaa sidoo kale waxaan idin daari doonaa kilibyada askarta andhahe dhalinyarada ama shacabka xaq u dirarka ah ee beesha ciise oo hubkooda wato fariimaha ay dirayaan dhammaan macluumaadadaas aan soo ururiyay ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa dhammaantiin waxaan ka codsanayaa fariintan iyo muuqaalkanba inaad sii fogeysaan suulka aad saartaan ama like-gareysaan YouTube-kana subscribe saarataan si aad u heshaan muuqaalada xiisaha leh aysan idin dhaafin maadaama cilad kaban maadooyinka ugu dambeeyay ay jirtay soo dhawaada dhammaantiin aad baad u mahadsantiin runtii cirro yahuudi ama cirro sahyuuni uu ku ceebaysan yahay arrimaha galbeedka dhulkii maamulka Hargeysa uu ka talinayay saad la wada socotaan dhibaatada halkaasi taagan 95% marka laga soo tago dagaalkii dhexmaray beelaha ciise iyo Samaroon waxaa 95% iska leh jabhadda buurta gacan libaax oo kala carablaysay 3 go'aan oo ay soo saareen ayaa arinta halkaasi geeyay buuga xeer ciise lama qaban karo haye haddana waa la qaban karaa waa fasaxan Boorama xasuuq waa ka dhacay haddana ma yahay la jooji 3daas go'aanba Cabdiraxmaan Cirre maamulkiisa ka soo baxay mid waxaa saylac ka yeeriyay Cabdalla Sandheere oo buugaas joojiyay ninkii kalena waxa wasiirkii arrimaha warfaafinta iscasilay Axmed Sheekh Cali ayaan le isaguna Samaroona oo fasaxay haddana markuu xasuuqa Boorama ka dhacay Cirre kaamirada soo istaagay oo yiri waan xirnay
horta dhibta meesha ka taagan marka laga soo tago beelaha ciisii samaroon ishaysigooda waxaa sababa jabhadda buurta gaclibax waxaa taasii dheer in labada beelood bay u geysanayso xasuuq aysan u aabayeelay taas oo dad badani oo aragtida ay soo dadajin ay ku soobeeyeen inay soo dadajinayso in beelahan ay tashadaan haddaba beesha ciise waxaa ku socday muddooyinkii ugu dambeeyay xasuuq toos ah waa midda koowaad waxaa lagu laayay deegaanka indhabiraale waa laga soo gubday deegaanka gargaare galbeed technico andhaha gaadiid shacab iyo qoryo iyo rasaas ayaa laga qaaday mar kale maxaabiis fara badan oo dumar iyo rag isugu jira ayaa hargeysa la geeyey shalayna tan ayaa ku dhacday waa gacantii afraad ama shanaad oo dadkaasi loo geysanayo haddaba saad shalay wax u dhaceen waynu wada ognahay iyadoo jabhadda buurta gacanlibaax iyadu laftigeedu ay gubtay dhulkii beelaha samaroon iyo mataqaanaa isha soolaro ayaa beesha ciise waxaa dusha laga saaray inay iyagu gubeen taas oo soo dadejisay xasuuq ay u geysteen arrintaasi waxaa ka jawaabay markii shacabkii iyo dhalinyaradii oo maanta qoryoodii hubkooda la soo baxay iskana dhiciyay dagaal qaraar ayaa maanta la soo jabinayaa inta layla wadaagay hal askari ayaa dhintay waxaana ay dadka deegaanka ku guuleyseen deegaanka geerisa ay ka saaraan maleeshiyaadka jabhadda buurta gacanlibaax waxaana fariimo waaweyn diray askartii iyo ciidamadii shacabka ama dadkii deegaanka oo hubkooda qaatay oo ku dagaalamaya qoryaha dabajeexa PKM-ka iyo sidoo kale qoryaha AK47 iyagoo hubkaas yar fudud ee wato ama qoryahaas darandooriga u dhac wato ayay ka hortagayaan nidaam canshuurtooda qaadanayay xasuuq bahalnimo ah u geysanayo iyagoo ka adkaaday kana saaray magaalada kana dhabeeyay hadalkoodii ahaa qoray AK47 ayaan dhishikaa kala hortagi doonaa isakawa lixshub baad nidaamka gacabtaa oo lagu gowracay leeyli baad biyaha dhaarsataa laayay qaridii waa sida qaybkana laaskaad qudun buu lacdin darayaa ma lahaysteel baa tiirmaan la qaybo dhishikaa hadii loogu hanjabo dad loogu hanjabo dhishikaa duu jiro anaga xaqayga waxba kama haadar aakan ku furna dhishikaa kaasa ka taliya ka in badan baan dhowrnay dowladda Soomaaliland in badan baan ilaalinay wada noolaanshaha in badan baan ilaalinay kala dambeynta nidaamka Soomaaliland 500 aqal baa laga gubay anigana maanta aqal laga gubay xamasteeda ku leysay way noo bilaabantay isaaq waxaan leeyahay in badan baan hal askari oo leeyahay anoo 500 askari dagaal gelinay markuu dhaxal soo joogsado istaagay oo dawladda yiri maanta reer baa tahay isaaq baa tahay iibina dawladeyn kartid ana ku leh laba reer weysaysta reer baa soo haray aniga hal reer iibina dawladeyn karo dawladda Soomaaliland isaaq oo kaliya ma noqoto ma matalo reer baan adiguna reer baa tahay bismillaah ku leh maanta inoo bilaabantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh ciisow way bilaabantay wixii la sugaayay ee sugaynay intaas oo dhan waa tamaanta dhacday shalay bay dhacday oo maanta dhacday daawan mayno nin hadduu naga harayo nin wallaahi baana daawinin oo billaahi baana daawinin oo tallaahi baana daawinin hadduu nin naga harayo ciisow ka kac fadhiga waxa la wax ku haray ma jirte intigaaga difaaco ubadkaaga difaaco maxastaada difaaco oo dalkaaga difaaco adana ku badheeray wax ku haray oo maanta ku dambeeyay ma jirto shalay baan ugu horlaayay oo maanta ugu horlaayay wallaahi baan daawinin oo billaahi baan daawinin waxa la noo kala gooyo ومستعدين هذا مستعدين وي haddaba ninka muhiimka ayaad rabtay inaad ogaatid ee dhibtan ka dambeeyo shalayna wadan la wadaagay waa taliyaha aagaasi ama saldhigga geerisa oo loo yaqaan guray gabayre waa ninkan sawirkiisu idin muuqdo waa qabeel ahaan waa reer kala yiraahdo habar awal reer xareed waa sida la ii sheegay ninka mas'uuliyadda qaadayna waa isaga ayaana geysanaya waxa uga sii sareeya nin samaroon oo la yiraahdo taliya Yuusuf Gaab oo isaga waxba aan kala ogeyn meel ay wax marayaan xataa ma ogo ka soo gudub xaalka halkaas u maraya beesha ciisana waxaad moodaa inay soo jeesatay talooyinkii iyo fariimihii aan diraynana ay ku socdaan waan ku bogaadinaya anigu hal mid baa muhiim ah inaad ogaataan qabiil xukumi kara ma jiro runta waa intaas waay haddii la isla fahmi waayo nidaamkii dowladnimo iyo maamul nin walba gurigiisa ha joogo maxaa dhibaatooyin kale ku jiro nin walba hadduu gurigiisa joogo oo aynu ku laabano sabankii odayaashu ay talin jireen oo xoolaha inoo kala galo iyo mataqaanay baadida aan kala ceshano wali baa jirto laakiin siyaan lagu dowladeen canshuurtaada laga qaadeen wiil kula mida ama reer kula mida iyaysan ku dowladeen adigu isku dowladeen marka wax heshiis lagu yahay la arko markaas la gaaro laakiin si inta mataqaanay inta canshuurtiina la qaato go'aamo been ah la idiin soo saaro hadba qiyaali iska dawreeg la idiin la yimaado
laba carablayn la idin kula yimaado iska ilaaliya anigu taasaan idin kula talinaya waxaan idin la wadaagi doonaa fariimaha ay dirayaan odayaasha dhaqanka beelaha ciise fariimahaas oo ka soo baxay maantay si adagna u hadleen cadeeyeenna in yuhuudan maamulka yuhuudda ah ay iska difaaci doonaan أنا عاقل بارح كيف هذا الإنسان مش توتر ده ما بهيبة كل هدي دتك يحاسك دشيء شرح لو قراءيه وعاقله أم بلوي شكر أمان هو واحد بوحليب الدين دون أنا مجرو وعسوي زمان يلا عيسو واحد دايم دولة ما وتحكي لنا زمان يلا وحي هل كانت بارت تسوي زي دولة الصومال تكو أيد سري الله هيد وحا ودولة دنيا الله هيد وما يلا مات رجال محيا هيد هرجلدا كالصعدة الشلي ها أرورتي الدجال كدعية دكوب كوب يتمقف في داوعنتها ولي عند حمل الحرد عيدا كدح فدي من مثلا عيسى وطن يراتي حبد جوكستي دولة دايرة يهودا عرو إنك كررن يا waxa ay sameynayso wax la dulqaato ma waxay moodaysaa in ciise la kala goynayo oo ku galbeed ku badloo kala goynayo war ciise ma kala goyro aabulay aaba kaliulay ciise kaum baan ka talin haddii xibadi ka hadhayso wax dambe ka qaadan man wax dambe kama qaadanayno dhibta doona dhanac كتر هذا يكون دمرش مالين تدمبه للولي ما حماس تيادا يا هبلا هيجا يا أبد كيجا لنقول لايو والله ما تكسرنا والله ما تكسرنا بالله ما تكسرنا صلاة إننا شركة جنجرة يدو حكون سبسية لبعضي شلال كأكل عادي حصوق به وحكدرن هبلا هيجا شلال كالبقى قاوني أرتوا ميدا وحنود القاضين ما دمشق كجينا وحالي شبر قار قبض بيكون عبد تاندا هالك هتالا يلا دونا يا أنا قصب لنقول قليو وحين واحد العيمة يسوه وحوي قرن وحل محايا هيدي لجوجو ما وطن يراتي حبد جوكسيت دولة دايرة يهودا عرو إنك كررن يا وحاي سمينيس وحلا دلقات ما سيبتي شلي هرتا iyadu waxaan u dulqaadanaa ma dumarkayga suuqa lagu qaaqaawinay ee askarigu jijidi war arrinkan uu dhimasho ka geeyna aqalka ku jira xerada ee waxba galabsan sida ugu dhasaha badan salaada duhur intayna gaadhin hadii la soo day waayo anagu geeri baan ka geeyna haddaba khubaradu waxay ku talinayaan ama dadka xogaalka waxay ku talinayaan in arrinta ka taagan deegaanadan aysan gacmaha ka laaban karin dawladda Jabuuti iyo sidoo kale beesha ciise ee deegaanka Soomaalidu waa inay si kastaba u farageliyaan maadaama ay qusayso arrintan oo aysan waxba dhowran khubaradu waxay soo jeedinayaan in haddii arrintaasi dadka ciise ay Jabuuti ama dawladda Jabuuti ama dawladda deegaanka Soomaalidu ay gacmaha ka laabtaan in arrintaasi ay dhali doonto natiijo aysan dadkaas laftigoodu mahadin waxay ku talinayaan khubaradu inay garab istaag dhan walba ah ay la garab istaagaan haddii horey loo qarin jirayna aysan wixii saacadan ka dambeeyo qarin ay si dhab ah u garab istaagaan waxaa jira dad meelaha ka sheego in ciidamadan laga soo abaabulay ay shaca iyo dirdhaba kuwa kale waxay ku eedeeyaan dawladda Jabuuti inay faragelin ku hayso waxaas dhan ka soo gudub maadaama hadda ay tagtayaan maali jiray khubaradu waxay soo jeedinayaan in taageero dhan walba ah ay dadka ciise ee ku sugan deegaanka Soomaalidu iyo dawladda Jabuutiba ay taageero siiyaan dadkan shacabka ah ee marasta ah ee hubka canshuurtooda lagu iibiyo lagu leynayo nidaam dawladeed oo awood leh oo hub iyo teknika haysta oo xasuuqayo shaati ku xasuuqayo waxay soo jeedinayaan in la garab istaago fariinteedana waa u diraya garab istaag buuxo baa leedan kaga baahan yahay aad banaan islaam meel ka soo joogtaan